tallaabooyinka Trump ee la xiriira inuu mar kale sii horiyo colaadda dalkaasi Iran iyo Mareykanka iyo Israel u dhaxaysay way soo taraysaa sida laga soo xigtay warbixino sirdoon iyo kuwa diblomaasiyadeed oo ay daabaceen wargeysyada waaweyn ee dalka Mareykanka gaar ahaan New York Times iyo The Wall Street Journal waxay muujinayaan qaadashada Trump ee qorshe dhameystiran oo uu ku miisaamayo inuu duqeymo toos la beegsado xarumaha nukleerka ee dalka Iran gaar ahaan kuwa ugu waaweyn ee la aaminsan yahay in maadooyinka islaamka lagu bacrimiyay ee Fordo iyo Natanz ma aha oo kaliya xeelad cagajugleena balse waa istiraatiijiyad daba oo miis ka saaran tallaabadani haddii ay dhawadana waxa ay isbedel taariikhi oo aan dib looga soo kaban karin ku samayn doontaa qariirada siyaasadeed dhaqaale iyo amni ee mandiqada bariga dhexe waxayna gogol xaar u noqon doontaa dagaal baaxad leh oo saameyn ku yeesha guud ahaan dhaqaalaha adduunka warbixintan waxaynu ku eegaynaa dhinacyada kala duwan ee xaaladan xasaasiga ay leedahay waxaanu si faahfaahsan u eegi doonaa maxsuulka ka dhalan kara falcelinta la filan karo iyo saameynta ballaaran ee dunida ku yeelanayso adeega Wire Nations waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga Yurub ama Canada aad ehelkaaga Afrika ku sugan si toos ah lacag ugu diri karto qiimo ku qanciya iyo degdeg siimo kala soo deg hadda Play Store ama App Store Wire Nations adeeg loo bogay lana mahadiyay burburinta xarumuhu maxay Iran uga dhigan tahay haddii Mareykanku uu qaado oo Trump uu amro duulaan military oo gabi ahaanba in dhulka la simaa xarumaha sirdoon iyo kuwa nukleerka Iran sida xarunta kobcinta uraniumka ee Natanz ama xarunta dhulka hoostiisa ku taala ee Fordo falkaasi waxa uu Tehran u noqonayaa dhabarjab weyn oo dib u dhiganaya ama ku dhacaya barnaamijkeeda nukleerka sanado ama xitaa 10 sano dhaqaalihii baraana ee dalkaasi uu galiyay waa ay burburaysaa aqoontii saynisyahanada iyo waqtigii dheeraa ee ay galiyeen mashruucan hal mar ayuu noqon doonaa marxalad laga gudbay oo khasaare ah balse dhinaca kale falkan military waxa uu xambaarsan yahay cawaaqo xumo siyaasadeed iyo mid istaraatiijiyadeed oo Mareykanka iyo xulafadiisa ku noqon karta gamoon dib ugu soo noqdo oo iyagu ay u dhiig baxayaan marmarsiyaha xaqa siinaya hubka nukleerka wararkan waxa uu Tehran markaas siinaya wada dhab ah oo ay uga baxdo dhammaan heshiisyada kormeerka caalamiga gaar ahaan heshiiska xakamaynta hubka nukleerka ee la yiraahdo NPT waxay beesha caalamka u sheegi kartaa in wadankeeda la weeraray iyadoo aan hub nukleer haysan taasna ay khasab ka dhigaysan hadda samaysato hubkaasi si ay isku difaacdo waana doodii dhawaan u jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Abbas Araghchi kaas oo tallaabooyinka ay qaadayaan Mareykanka iyo Israel ku sheegay inay yihiin kuwa xadgudub ku ah madax banaanida qarannimada iyo waliba sidoo kale jiritaanka dalkaasi Iran shacabka iyo maamulku mar kale ayaa loo mideynaya wadaadada inkasta oo maamulka Tehran uu wajahay mucaaradad gudaha iyo banaanbaxyo ka dhashay xaaladda dhaqaale weerarada sheeyay waxay si toos ah u abuuraan dareenka midnimada qaranka ee dalkaas oo shacabka Iran waxay ku riixaan in ay noqdaan kuwa nidaamka dawliga ah ee dhashay 1979kii safkooda gala cadawga dibadda ayaa unkaya midnimo gudaha taas waxay xoojinaysaa awoodda wadaadada talahaya iyo ciidanka eelanada kacaanka ee dalka Iran sidii laga arkay weerarkii bilowday subaxnimadii 28 Febraayo ee sanadkan markaas oo Mareykanka iyo Israel ay weerar wadajir ku qaadeen dhammaan xarumo kala duwan oo gudaha dalka Iran lagu dilay konton ka mid ah hogaamiyaashii ugu sareeyay dalka Iran oo uu foolaad u yahay hogaamiyihii dalkaas Ayatollah Ali Khamenei dibudhis qotar dheer ayaa sidoo kale dhici kara burburinta xarumaha muuqday ma joojin doonto aqoonta maskaxda ku jirta ee Iran waxayna Tehran barnaamijkeeda dib uga dhisi kartaa goobo aad u qotar dheer oo ku dhex yaala buuraha dhaadheer kuwaas oo aysan gaari karin xitaa bombooyinka ugu waaweyn ee Mareykanku u haysta inuu isticmaalo burburinta dhufaysyada dhulka hoostiisa tan waxay ka dhigan tahay in barnaamijka kan xiga uu noqon doono mid gabi ahaanba qarsoon oo aan la socod lahayn dhawaan markii xarumaha la weeraray Mareykanka warbaahintiisu waxa iyo sirdoonka ilaa Trump waxay si weyn isugu qabsadeen falcelinta ka dhalatay CNN-ka Mareykanku waa isagii soo bandhigay inaan habayraatee wax xarumaha nukleerka ee dalka Iran aysan gaarin lama arag wax shucaaca taas oo macna ahaan ka dhignaanaysa inaan loo dhawaanin maadooyinka la bacrimiyay ee nukleerka ee dalka Iran taasina waxay ka dhigantay Mareykanka duqeymo kasta oo uu qaado oo xarumahana inay noqonayaan kuwa aan wax natiijo dhinaciisa uga soo bixin dagaal dhinacyo badan leh ayaa Iran laga filayaa haddii uu qaado go'aankan Donald Trump sida cad fikirka in Iran aysan aamusnaan ku liqi doonin duqeymo lagu burburiyo mar kale hantideeda istaraatijiga waa aragti aad u gaaban hogaanka sare ee Iran gaar ahaan hogaamiyaha ruuxiga ee talada hadda la wareegay Mustafa Ali Khamenei waxa uu dhowr jeer wacd ku maray intii la doortay in xabadda koobaad ee lagu soo rido dalkiisa gaar ahaan goobaha
nukleerka ay noqon doonto calaamad gobolka oo dhan gubasho u horseeda. Tehran ma noqonayso awoodeedu mid xadidan, waxayna u ekaanaysaa mid qaabaysan oo isugu jirta argoosi toos iyo mid dadban. Inkastoo ay weli wado duqeymaha iyo weerarada ay ku qaadayso saldhigyada Mareykanka ee gobolka ku yaala, haddana waxaa la filan karaa jawaab midda ka ballaaran oo ay ku wajahdo dhammaan dalalka gobolka. beegsiga tooska ee saldhigyada Mareykanku sida ay muujinayaan khubarada gantaalaha balaastikada Iran waa kuwa ugu horumarsan uguna tirada badan ee mandiqada yaala. Inkasta oo si toos ah loogu garaacay boqolkii cisho ee la soo dhaafay saldhigyada Mareykanka ee gobolka uu ku leeyahay, haddana goobaha ugu badan ee khasaaruhu uu gaaray waxaa ka mid ah saldhigga Al-Uud ee dalka Qatar, xarunta ciidanka badda ee Bahrain iyo saldhigyada ku yaala Ciraaq, Suuriya iyo waliba sidoo kale Saudi Arabia. Tanina waxay sababtay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidanka Mareykanka oo iyana ay ku khasabtay Washington inay qaado weerar ragaal celis oo xaaladda ka sii dara iyo inay qayb ka mid ah shaqaalaheeda aan muhiimka ahayn oo dhan ay ka daabushay gudaha dalalka Khaliijka. Sidoo kale saldhigyadeeda ay dib u eegaysaa inay noqdeen kuwo aan ka qaadi karin jawaab celinta ka imaanaysa dhinaca Tehran oo nugul weerarada tooska ee ka imaanaya gudahan dhinaca dalka Iran. xiritaan dhammaystiran oo hormisa iyo waliba sidoo kale burburka dhaqaalaha adduunka. Wargeyska The Wall Street Journal waxa uu farta ku fiiqay cabsida laga qabayo xiritaan dhammaystiran oo marinka hormisa. halkan waxa uu halboolo u yahay dhaqaalaha caalamka iyadoo maalin kasta ay marto ku dhawaad 20% shidaalka adduunka loo dhoofiyo. Khaliijku waa halka ugu ballaaran ay ku tiirsan yihiin. Iiraan halkan waxa ay geysay miinooyin badda hoostooda, doonyaha dheereeya ee gantaalada xabaara, kuwa bilaaduuriyaha iyo gujishada si ay u beegsato maraakiibta ganacsigana way samaysay. Tani waxay sii dhalin doontaa in qiimaha shidaalku uu gaaro heer aan hore loo arag, sida in halkii fuusta ay kor u dhaafto $200, taasoo ay dhawaan cagacagaysay. waxayna horseeday hoos u dhac dhaqaale oo ku yimaada suuqyada caalamka oo dhan, gaar ahaan reer galbeedka ilaa Asia ee ku tirsan shidaalka dalalka Khaliijka. burburka dhaqaalaha reer galbeedka gaar ahaan kan Mareykanka ayaa si weyn looga dareemay intii marinkan ay xirnaanshaheedu u jirtay oo ay Tehran howlgelisay. sidoo kale waxaa jiri karta in kooxaha wakiilada dagaalku uu si weyn u saameyn doono. difaaca koobaad ee Iran ma aha xuduudaha iyo gudaheeda, waa shabakadaheeda huwanta ee ku firirsan mandiqada bariga dhexe oo dhan. Xisbullah oo ku sugan koonfurta Lubnaan ayaa 100,000 oo gantaal ku asqaysay magaalooyinka waqooyiga Israa'iil. Xuutiyiinta Yemenna waxay labalaabeen weerarada ay ku hayaan dhinaca gacanka cadmeed iyo waliba sidoo kale dalalka Khaliijka gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka oo kale. maleeshiyaadka Ciraaq iyo Syria waxay yana beegsan doonaan haddii mar kale duqeymaha xarumaha nukleerka ee Iran la aado danaha Mareykanka ee gobolka. xaaladuna waxay hadda u muuqanaysaa inay aadayso dagaal wajiyo badan leh oo aysan jirin si fudud u damin karta una soo afjaraysa. 60kii maalmood ee loogu talagalay heshiis xabad joojin ee lagu gaaro mar kale waxaynu ka sheekeynaynaa colaadda oo daba dheeraanaysa. Israel iyo farxadda Benjamin Netanyahu go'aan kasta oo Trump ku weerarayo mar kale xarumaha nukleerka Iran waxa uu la macno yahay Netanyahu riyadii rumowday iyo garabkiisa midig ee golihiisa wasiirada ee dagaalka u darban in colaad uun lagu jiro. Israel sanado badan bay aaminsaneed aragtida loo yaqaano bacriminta in la burburiyo nukleerka, taasoo ah inaan marnaba la ogolaan in ay dal cadow ah oo doonayo inuu tirtiro Israel uu helo hub nukleer ah. culayskii waa laga dulqaaday. Netanyahu waxa uu muddo olole ugu jiray sidii bulshada caalamka gaar ahaan Mareykanka uu qancin lahaa in la garaaco Iran. wuu ku guuleystay sanadkii 2025 Trump inuu colaadda geliyo, mar kalena bilowgii 2026 ayuu cagaha u geliyay in Mareykanka dagaalkaas ay galaan. waxay Israa'iil tan ka dulqaadaysaa halistii weyneed ee ahayd inay kaligeed qaado duqeymaha dagaalka. diyaaradaha Israa'iil ma haystaan awood isku filan oo ay ku burburiyaan xarumaha qotada dheer sida Fordow oo kale, iyagoo aan taageero saadka iyo hubka culus ka helin Mareykanka. hadda waxaa muuqata in fulinta qorshaha ee maamulka Trump waa guusha ugu weyn ee amni ee Israa'iil ay heli karto. dhawaan markii la saxay heshiiska Afgaradka ee Islamabad ay garwadeenka ka ahaydna waxa Israa'iil gashay go'doon siyaasadeed. Netanyahuna waxa uu la kulmay wixii ugu weynaa ee dhabarjaba. laakiin qorshaha cusub ee hadda ee la xiriira in la weeraro xarumaha nukleerka ee dalka Iran ayaa naruuro gelinaya dhinaca Benjamin Netanyahu. samata bixinta siyaasadda gudaha marka la eego oo laga soo dheegtana dhanka siyaasadda, talaabadan waxay Netanyahu u tahay badbaado dhammaystiran oo waa nolol jiritaan ah. waxay u sahli doontaa inuu indhaha shacabka iyo kuwa caalamkaba ka weeciyo maxkamadayntiisa musuqmaasuqa gudaha eedaha la xiriira qaabka u maareeya dagaalka Gaza. Lubnaan wuxuu isu muujinayaa inuu yahay hogaamiyihii meesha ka saaray halistii ugu weyn ee jiritaanka Israa'iil soo food saartay tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. waxa uu isku arkaa inuu heli doono taageero gudadeed oo weyn. inkastoo Israa'iil ay la kulmi doonto argoosi kaga yimaada Xisbullah iyo Iran, haddana Tel Aviv waxay u aragtaa in khasaaraha uu yahay mid loo dulqaadan karo marka lala barbardhigo halista in Iran ay yeelato bomba nukleer ah. Netanyahu waxa uu sheegay inuusan marnaba aqbali doonin haba yaraatee in hub nukleer ah uu gacanta u galo dhinaca nidaamka Tehran.
sidee dagaalku uu faraha uga sii baxayaa halista ugu weyn ee qorshaha ku gadaama waxay tahay aaminsanaanta khaldan ah in la samayn karo weerar xadidan oo Mareykanku ay limitation iyagu u sameeyaan taariikhda dagaalada casriga ah waxa ina baraysaa in qorshaynta military aysan ka badbaadi karin sharciga lama filaanka ah ee ahayn dagaalku uu noqdo mid furan haddii xabadda koobaad la rido cidna ma xakamayn doonto dagaalka kama dambaysta ha aqaad aqalka cad Vaticanka ama hoggaanka Tehran mana xakamayn karaan xawaaraha dagaalku uu ku fidayo taas oo laga bartay dagaalkii la bilaabay sanadkii 2025 bartamihiisii 12 maalmood socday kaasi waxa uu markale soo laba kacleeyay bishii Febraayo ee bilowgii sanadkan ilaa haddana waa isaga socda heshiis kasta oo la gaarana way keeni waayay xal kama dambaysa haddii Mareykanku mar kale go'aansado garaacidda xarumaha nukleerka ee Iran waxa ay garaaci doontaa kale meel kasta oo shidaal oo mandiqada bariga dhexe maraakiibta dagaalkana waxay isku dayaysaa inay burburiso taas waxay ku qasbaysaa Mareykanka inuu garaaco xarumaha taliska militariga iyo kaabayaasha dhaqaalaha sida haddaba uu waday oo warshadaha shidaalka ilaa dekedaha iyo kaabayaasha dhaqaalahaba uu taabtay taasina waxay dagaalku isugu bedelaysaa isku day lagu ridayo nidaamka dalka Iran taas oo howlgal dhiig badan ku daadan doono oo Mareykanku uusan diyaar u ahayn kadib casharadii uu ka soo qaatay furimaha dagaalka ee Iraq iyo Afghanistan dagaalada caynkan oo kale kuma koobnaan doonaan oo kaliya Mareykanka iyo Iran Ruushka iyo Shiinaha oo xiriir iskaashi oo istiraatiijiyad la leh dhinaca Tehran ayaa leh hubaal falcelin doono degdega inkastoo aysan ciidamo toos ah dagaalka gelin haddana Iran waxay siiyaan xogo sirdoon tiknoolajiyad difaac cirka iyo taageero diblomaasiyadeed oo wiiqaysa saameynta Mareykanka ee golayaasha caalamiga dhibanayaasha aamusan saameynta dalalka khaliijka carabta dalalkan carabta gaar ahaan kuwa ku buhoobay golaha iskaashiga khaliijka ee GCC sida Saudi Arabia isutaga Imaaraadka Carabta Bahrain iyo Qatar waxay noqon doonaan dhibanayaasha ugu weyn ee dagaalkan inkastoo aysan iyagu dagaal ka bilaabin haddana dhibanihii ugu ballaarnaa ee dhibaato ay ka soo gaarto ay ahaayeen burburka kaabayaasha dhaqaalahooda ayaa la arkay waxay martigeliyeen salgiyada ugu waaweyn ee Mareykanka Iran waxay hore u sheegtay in dal kasta oo garoonka ama badiisa loo adeegsado weerar ka dhan uu noqon doono bartilmaameed taana waa ay fulisay intii uu socday dagaalkii u dhaxeeyay labada dhinac iyo kan hadda wali taagan madaarada caalamiga ee Dubai Doha warshadaha tamarta iyo waliba sidoo kale mashaariicii horumarineed oo dhan waa istaageen dhimashada riyooyinka dhaqaale dalalka khaliijku waxay sanadahan dambe wadeen qorshayaal ay ku casriyeeyeen dhaqaalahooda kagana weecinayaan ku tiirsanaada shidaalka oo kaliya sida qorshaha 2030 ee Sacuudiga dagaalka gobolka ka qarxayna waxa uu burburiyay kalsoonidii maalgashadayaasha caalamka dalxiisayaashu way joogsadeen hantida maguurtada ahna way burburtay kumanaan ajaaniba ayaa wadamada ka tagay riyooyinka carabta ah inay noqdaan xudunta ganacsiga iyo horumarka tiknoolajiyadda waxay dib u noqotay xaalad cabsi iyo burbura dhimashadii rajadii dib wada hadalka ee labada dhinac duqeymaha xarumaha nukleerka ee Iran waxay ay keeni doontaa in sida musmaarkii meesha laga saaro oo naxashka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay Iran iyo Mareykanku gabi ahaanba la qaado amnaad xumaad joogta ayaa jirtay intii lagu jiray sanadihii la soo dhaafay bilihii ugu dambeeyaba waxa jiray rajo yar oo ah in labada dhinac marun ku soo laabtaan miiska wada hadalka dib loo noo soo nooleeyo heshiisyadii hore loo gaaray kii ugu dambeeyay 60 maalmood nukleerka looga wada hadlana waxa uu muuqanayaa inuu burburay sida uu Trump ka dhawaaqay intii uu joogay gudaha dalkaasi Turkiga garbiyada qunyar socodka ah weeradan waxay fagaaraha siyaasadda Iran ka tirtirayaan sidoo kale siyaasiyiinta qunyar socodka ee aaminsan in reer galbeedka la heshiiyay markii la joogo gudaha Tehran doodoodu waxay noqon doontaa mid laga adkaaday oo la jabiyay tarciidanka ilaalada kacaanka oo kaliya ayaana xoogaysan doonta garabyada xaq jirka iyo militarigu waxay si buuxda oo la wareegeen jahaynta awoodda ee dalka Iran dooda kaliya ee dhaxmari doonta bulshada Iran waxa ay hadda tahay sida ugu dhaqsaha badan ee loo hubayn karo barnaamijka nukleerka si looga hortago in dhinacyada kale ay dib u soo noqoto qorshaha aadka u halista badan ee ay daabaceen wargeysyada The New York Times iyo The Wall Street Journal ma aha dhibaato kooban in la xalinayo waa qorshe haddii uu dhaqan galo furi doono sanduuq ay ku dhex jiraan dhibaatooyin waaweyn oo goboleed iyo kuwa caalami ah talaabo kasta oo la xiriirta duqeynta xarumaha nukleerka Iran waxay soo afjaraysaa rajadii nabadda heshiisyadii hore loo gaaray waxay curyaaminaysaa dhaqaalaha adduunka waana khasaare aan la qiyaasi karin oo ay gaarsiinaysaa dalalka carabta waxaana hubaal ay dhalan doonaan dagaal jiitamo oo faraha ka baxa kaasoo aan marnaba xaqiijin doonin hadafkii laga lahaa ee in la abuuro duni ka nabad gasha halista hubka nukleerka ku soo dhawow Daarul Asnaan Dental Clinic xarunta daryeelka ilkaha oo tayo sare leh war farxad leh adeegyada casriga oo ay ka mid tahay beerista ilkaha ayaa hadda diyaar ah Hindiya inaad aad uma baahnid Garowe iyo Boosaaso aad ka heli kartaa ilkaha maqan Daarul Asnaan Dental ayaa ku haya hal waar oo caafimaad leh